إذا حب الله عبدا نادى جبريل إلهي أدون هدو جعلاده جبريل بو يري أورنا يا أدون كوان جعلاده جعلو لأن جبريل عليه السلام أدون كابو جعلانا يا إلهي ورالك كالنقضي ملك الجبريل عليه السلام خلق السماوات ككن والبو إعلان وجهدين وليهي أدون كإلهي برالك النقضي جعلاده بوليهي أهل السماء ودن بجعلان بو نبي يري ثم توضع له القبول في الأرض لأن مركز أرلدا الله دادعنا يا قبول كيسا أرلدا إلهي دادعنا يا وفوح نغنى مسموع الكلمة دتكو أي هذا الكيسا مغلان دتكو ماركتاني أي جعلادان دتكو أي احترامان بو نغنى دتكو أي وجوك سدان بو نغنى محايا لي لأن حق سراء يا لقى أقبلي ولي بقبول كأرلدا الله دادعنا ما ها بني آدم ككلية واحد جعلانا يا مخلوق إلهي أبو ري ودنبا أدونك إلهي أصخريا تصغير بو هلايا هلكا كعاصقة دنبغا بدن له فجورك بدن له إساقو تسليد بو هلايا وحوال بو لغو صليدايا ريركيسا لغو صليدي وإلميهيسا لغو صليدي وأدوية أو هايستانا كودح راحيسان مايا واللغو دح عذابايا هلكا سوكالا نيكا مؤمنك إلهي عبادتي إلهي وقود تلقى لي طريقة دي مرة إلهي الرالي قليا وحو هلايا إساقو قبول بو هلايا قبول خلق قدنبا إلهي تبارك وتعالى وصخريا كن لي كما أريد أكون لك كما تريد با إلهي نبي موسى وكيري يا موسى سدا أن دوني حدادي يشد أنيقا سدا دادوكو أدوني سانكا كويا لينا وقورما وأمركو نبي موسى عليه السلام أريقا نبي شعيب وجرايي أيو أريقا وحل الراعبة للحيوانك وحوها والبدن نعمو ليدا أريقا يا وحوها والبدن قيلي يالله دا واللغا سيحان كرا واللغا نسان كرا لكن أريقا لغا من نسان كرو ماشي وجوجين الذئبيga yeyga ayaa ku badnaa iyo dabca iyo saclabka ayaa ku badnaa isagoo ka cabsi qaba in xoolaha dhurwaaga uu ka qaato ayuu nabi muuse geed hoostiisa intuu yimid hurdadii la tagtay baa la yiri markuu hurdadii ka kacayna wuxuu helay waraabihii ushi nabi muuse haysta oo neefka dhinaca uga weecata u soo wicinayay nabi muuse calayhi salaam markaas haatif dhawaaq buu maqlay nabi muuse calayhi salaam lagu leeyahay yaa muuse adoonku hadduu yeelo sida rabbigii uu ka doonayo sida adoonka uu doonayana ilaahay baa u sameeya baa lagu yiri wa haday cibaadadu qaalib noo noqoto weeyaan shayga labaad ee qofka bini aadanka loogu talagalay ilaahay uu ku abuurayna waa maxay wax la yiraahdo daruuriyaat qofka bini aadanku daruuriyaat buu leeyahay xaajaat wax la yiraahdo ورددوا من الضروريات عنتدوا من الضروريات بيها العبي ومن الضروريات حاسنات يلتوا من الضروريات مهردنا الأدوية كشقي سوا من الضروريات دارنا الحرة من الضروريات أقلنا يلتوا من الضروريات لذلك شريعة الإسلام ضرورة وحد ويشحد حدود لأن حدود هذه ضرورة أي دافتبع علماء ليهين waxay galaysaa marka baabu shahwa bay galaysaa shahwaad bay galaysaa daruuradana ilaahay azza wa jalla qarna mubah buu ilaahay ka dhigay qarna ilaahay waxa uu ka dhigay xaraam baa ilaahay ka dhigay daruurada inna waa laynoo xalaaleeyay inna waa laynaga xarimay daruurada xuduud baa loo yeelay xuduud maxaa yeelay cuntadoo kale marka ilaahay uu ka warramayo muxuu yiri kuluu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin cuntada cuna baa la yiri biyahana cabba hakuna israafina baa ilaahay yiri kuwa musrifiinta israafana ilaahay ma jecla baa la yiri daruura waad gaajoonaysaa inta aad uga baahan tahay ka cun waad oomantahay biyaha inta aad uga baahan tahay ka cab waa daruurada haddaan macno kale aan ku sheego waxa weeyaan qofka bini aadamka xaaja way qabataa meesha xaajadiisa uu ku soo gudanayo waa baytul khalaaga qofku ma dhex seexdo قدر الحاجة بكون هذا قدر الحاجة بيت الخلاق قف وحو كجرا حب حاجة هيسا وقتك أي وقبا أنت هيبو كسور ما يستا بس كمراجي كرو وهي ماشو مال صح معها وبيت الشياطين ويان ومال قرمو ويان وماشي كلية أنا لو قلين إنه أبدونك مؤمن ربي يكون حصوص وماشي عبادة الله ممنوعي
cibaadada xataa adkaarta dikriga suuqa waa lagu samayn karaa diyaaradda waa lagu dhex samayn karaa meheradaada waad ku dhex samayn kartaa tahaaro looma shardiyo awqaadna looma shardiyo taxdiidna ma leh udkuru llaha dikran kaiira buu ilaahay yidhi laakiin baytulkhalaaga markaad galaysa ilaahay xuskiisa ka dheerow maxaa yeelay meeshan waa meel daruurada xaajada lagu soo gudanaye maaha meesha lagu cibaadaysanayey sidaasoo kale weeyaan qofka bini aadamka daruuradiisu hurdada inaad seexataa waa min adaruuriyaat laakiin hurdadaadu xad waa inay yeelataa xad hurdada badan qalbiga qofka bini aadamka way engejisaa cuntada badan qofka bini aadamka qalbigiisa way engejisaa hadalka badan ee malaayacniga qofka qalbigiisa qasaawata qalbi buu ku ridaa oo hadalka badan qalbigiisa u engejiyaa ikhtilaadka badan ee raggu ay dumarka dhex marmarayaanna waa waxyaabaha qalbiga engejiyey bay culimmadu yidhahdeen afartaaba qalbiga bini aadamka way dhaawacaan oo way engejiyaan iimaankiisa daruura marka xuduud baa ilaahay u yeelay xataa guurka waa laynoo xalaaleeyey laakiin waa laynoo xadiday haddana guurkii fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa hulaatha warubaac fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida baa ilaahay yidhi waa laynoo jideeyey guurka xalaasha bal waa laynagu amray oo la yidhi waa guurka inii xalaasha guursada baa la yidhi labaa laga bilaabay saddex baa lagu xijisiiyey afar baa lagu xijisiiyey haddaad cadaalad inaad samaysaan aad ka baqdaan ood kari weydaan cadaaladii oo inaad cadaalad samayn weyda aad ka baqdid mid keliya kuwa koobaa ilaahay kaa yidhi taasi waa daruuriyaat intaa wixii ka baxsanna waa shahawaad bay galayaan oo ogaad dharkii waa min adaruuriyaat laakiin inteed uga baahan tahay innaka zamankeenna nolosheenna marka la eego daruuro maaha nolosheennu daruurada way dhaafsan tahay maanta nolosha maanta muslimiintu zamankan ay ku nool yihiin daruuradii waan dhaafinno waxay maraysaa innaka shahawaad bay maanta inaga maraysaa cuntadii waa shahawaad hurdadii waa shahawaad dhar qaadashadii waa shahawaad seexadkii waa shahawaad shaqadii adduunyadu waa shahawaad qaaruun buu nebi muuse u tegay calayhi الsalaam waxa uu ku yidhi wاbtaqi fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayka walaa tabqi اlfasaada fi اlard halkaasoo markaa nebi muuse calayhi الsalaam ayuu mariyey markuu la hadlaayay qaaruun ayuu ahaa basharka adduunyada soo maray ninka ugu dhaqaalo badan buu ahaa lama sheegin khasaa'intiisiiya waxaa la sheegay furayaasha khasaa'inta ay wax ugu jiraan lagu furaayo ayaa ilaahay yidhi ciidan dhan baa xambaari jira oo qaadi jiray baa ilaahay yidhi kaasaa nebi muuse ilaahay u diroo lagu yidhi war nicmadan adduunyadan iyo barwaaqadan aad haysato daartaada aakhirada uga faa'iidaysa baa lagu yidhi nasiibka adduunyada aad ku leedahayna tan adduunye maaha adduunye waa lagu siiye waad haysataa camalkaagii aakhiradaada wax ku tarayay weeyaan nasiibka adduunyada aad ku leedahee camalkaaga aakhirada ku anfacayana ka qaada baa lagu yidhi meeshan nicmadan aad haysatidna xoolahan iyo caqligan iyo ciidankan iyo caafimaadkan iyo barwaaqadan aakhiradaada ku camiro waxa laguu siiyey daruuradana ka isticmaal wixii daruurada dheeraad ku ana waxaa lagaa doonayaa meesha ilaah iyo rasuulkiisu ay rabaan inaad ku bixisa lagaaga fadhiyaa baa lagu yidhi qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii oqoon aan leehay baan maaragtaane xoolahan ku keenay buu yidhi maxaa ka dambeeyey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isaga iyo xoolihiisii iyo daartii uu deganaaba iyo qasrigiisiiba dhulkaan la goynay baa ilaahay yidhi daruuradu xuduud baa ilaahay u yeelay xadkaa wixii ka baxsan waxaa loogu talagalay qofku inuu isticmaalo ilaahay daacaddiisa inuu sadaqada ka bixiyo inuu zakada ka bixiyo aayaddan qur-aanka ayaa nabigeenna dushiisa ku soo degtay calayhi salaatu wasalaam lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wamaa tunfiquu min shayin faina allaha bihi caliim waxaa liya wixii wanaagee samafal oo dhan heli maysaan baa ilaahay yidhi ilaa xoolihiinna shayga ugu qiimo badan agtiinna aad ilaahay dartii u bixinaysaan ka hor abu طalxa radia allahu canhu waxa uu eegay shayga xoolihiisa ugu qiimo badan buu eegay waa beer bayruuxaa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam muqaabilkiisa ayay ku jaallay
waxay ahayd beer biyo macaan oo har macaan waliba nabigeennu calayhi salaatu wasalaam salaada marka uu ka baxo ayuu beerta intuu nebigu galo harkeyga macaana uu hoos fadhiisanaya harkeyga qabow biyaheega macaana uu cabbi jiray beerta qiimaha leh ee masaajidka nabigeenna ku hor taalla ee nebi maxamedna harkeyga uu u baahnaa biyaheega macaana nebi maxamed uu cabbaayey ayuu saxaabigaasi eegay inay tahay shayga xoolihiisa ugu qiimo badan leanna markaasuu ilaahay dartii u bixiyey innaka marka la yidhahdo wax bixiya intee baan bixinaa inta yar masaakinta badan maalin horaan sheegay magaalada Jabuuti bari anigoo dhex socda aniga sheekhi Allah u naxariistay ayaa meelahan traffic lane kan markuu shidmo waxay lagaabay dadka masaakiintu dadka wax weydiistaan ma ogtahay lacagta Jabuutina waad aragteen oo konton faran waa bir 100 kuna waa bir 500 waa bir 500 waa $2 iyo dheeraad markaasaan lacagtii soo saaro muraayadii waan dhaadhiciyo isna halka buu taagan yahay miskiinku masaakiinta zamankana intooda badan iyaguna waa xarfaan intooda badan baahima bahaysaba waxa laga yaabaa balwad inay hayso markaasaan bini aadankuna bukhli baa yaa gudihiisa iskaga jira bukhli waxaan isiri markaa baltan dhexe 100 faransi markaasuu igu yidhi xawaaladii aakhiraan heeta badan isii dhiga buu yidhi sheekh Allah u naxariistay baa ag fadhiyo war inaga sii wuri inaga sii inaga hadhay oo ay socon shayga ugu lacagtaan haynata ugu yar baan inaku maanta aan aakhiradan u xawlanayna walakin dadkii muhiim iyo aham kala yaqaanay muhiim iyo aham arintu way kala weyn tahay mid arrinkani waa muhiim waxa ka sii qiimo badan aham asxaabta rasuulku waxay yaqaaneen muhiimaat al-umur bay kala yaqaaneen iyo awlawiyaat sida shariicadu u kala qiimo badan tahay sida ahkaamtu u kala miisaan culus tahay bay kala yaqaaneen wuxuu yidhi saxaabigaasi wuxuu bixiyey shaygii beertiisa shaygii xoolihiisa ugu qiimo badnaa ayuu nabiga u keenay yaa rasuul waan bixinayaa waa ka beertaasaan bixiyey dachaa xayثu araaka allahu buri yaa rasuul allah meesha ilaahay kugu arko ku bixi buri beertaa dhig waan bixiyey markaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bakhin dalika maalu raabix allayle abu talxow tijaaradda ilaahay aad la gashay waad ka macaashay nolosha adduunyada dhanba waa tijaara maca allah weeyaan qofka bini aadanku waa inuu u fahmaa nolosha adduunyadu war yaa ilaahay la baayac mushtari cid kale ha la baayac mushtarayn nina ilaahay buu la baayac mushtarayno uu ka faa'iidaysanayaa noloshiisa adduunyada oo daacadda ilaahay buu ku dadaalayaa oo si fiican buu u noolaanayaa oo daruurada iyo shahawaadku kala garanayaa oo cibaadada ilaahay iyo cibaadada shaydaanka ayuu kala garanayaa oo xaq iyo baadilka ayuu kala garanayaa oo khayrka iyo sharka ayuu kala garanayaa deedna ilaahay buu la baayac mushtaraynayaa kaasi adduunyada isaga ka macaasha markuu ka baxayo xadiis alqudsi waa kii ilaahay lahaa cabdi marka addoonka la maydho ee kafanka aan ku duuduubno ee nacashka saarno ayaa ee qabriga aan geyno ayaa xagga samada lagaga dhawaaqi oo la odhan doonaa cabdi addoonkaygiiyow ghasaluuka way ku soo maydheen wa kafanuuka way ku soo kafeen wa fi turaabi dafanuuka ciiddiidan intay dillaaciyeen bay ku dhex geliyeen low dalluu macaka maa nafacuuka halkaa tolka hadday kula soo geli lahaayeenna waxba kumay tareen atarakta adunyaa am idunyaa tarakatka adduunkii maadaa ka yimiday mise ayadaa kaa tegtay baa qofka lagu odhan doonaa ajamacta adunyaa am idunyaa jamacatka adduunkii maadaa intoos ka soo ururiyey si fiican uga soo baxay mise ayadaa baktigaagii iyo meydkaagii meesha kugu soo ururisay labadaa mid weeyaan qofka bini aadamku imaa qofkan adduunyada ka tegaysa siduu gaadh u leeyahay imaa qofka adduunka isagaa ka tago ka sahay qaata saxaabada rasuulku waxay fahmeen adduunyadan inay waqti u joogaan keliya inay ilaahay la baayac mushtareeyaan deedna way ka macaasheenoo waa ka nebigu ku leh dalika maalu raabix maalkaa maanta aad la baxday waa tijaaro aad ka macaashtay buu nebigu yidhi إني أرى أن تجعلها في الأقربين بنبي يقول لكن وحنو أركا أبو طلحة
قرابة هذا كوكو دو كوكو مساكين تفقراء دا سيبوا نبي كيريك أو قيبي لأن الصدق زكدا أما الصدقة دا دتك كلام مركا الله سين نبي يقول والصدقات ويان قرابة دا مركا الله بحين يزكدنا وصدقات وأنا السلب ونبي يقول عليه الصلاة والسلام وأنا الصدقات والزكدي ويكاغا بحيسا وأنا السلب ويانو إيكينا حرير في عم بعد حدينا كابور ما يوقو ضرورة وحي دافسنا أصحاب رسولكم ياكو آخر ذا يحولنا وضرورة قدر الضرورة يدوي ذاك استعمالين قدر الضرورة علي بن أبي طالب أن يهودي بيرتسي ودامين أي نحوجن أوها ودن يراه مركان نك يهودي جي بعرك نكن إنه أصحاب النبي محمد وأنا كمد وأنا النبي جاي نادرك الروم عليه الصلاة والسلام وزوج فاطمة رضي الله عنها مركان سويري وجردي أن كسيني يبان كو كردنيه نن آمنة وحوجة ودن يراه آياته شقي سبو كي ساعة ديراد أوفر تايم شقي سو مركان سوكيري مي intaan maanta anigu aan cunayay ilmahaygu ila cunayeen xaaskayguna ila cunaysay waan haysanaa arsaaqada bari bay ila socotaa buu ku yiri daruuradii maanta waan haystaa weeyaan ta bari bay la socotaa maanta waxay ahayd arbacada rizqiga kula socda maalin bari toola waa khamiis arsaaqadeeda kula socota saxdaba waa jimce arsaaqad gooniyu wata todobada maalmood maalin la magac maaha maalin walba qofka bini aadanka xaalad gooniya ula socotay ugu maalin waa farxi maalin waa murugooni maalin waa bukooni maalin waa caafimaad maalin jeebka waxba soo gali maalin waxba ku soo gali maayaan maalin ma aragtaan khayr baa lagu bishaarayn maalin balaaya lagu sheegi maalin waa geeri maalin waa aruus maalin waa dhimasho maalin waa dhalasho wa tilka al-ayaamu نداولها بين الناس إنك وحن دونينا تضبط مع الموضوع هيسنا بإنا ضرورة وح كبدا إن المال ديجن أيام دونينا بتي ونكسنا وحن ولشة نفهمين ضرورة وتمالين تال تشوقوا ويان تبري بأرزاق الله سعتابو كيدي لأن علي بن أبي طالب مساجد كنا بيجينا عليه الصلاة والسلام حلقة القرآن بكلها ذاتك جدود كمسلمين تا إهدى دين الإسلام كالسوق لي أيو نبيكو أسميه ميل وكيد عليو هلكا أوفر صدتك القرآن كيبر بو كيدي مركا قال لي إنه فوفيي قال لي كدبان مسكيتكو عمريي ساعدنا وحوها ساعد إلهي أعابدو ساعدنا مساجدك ساعدنا حق النفتي زي حق ريركي سوسيني ساعة وساعة حنطلة رضي الله عنه أي الله كل ما أبي بكر الصديق صحابة ويسوري سنين مركا بودي حنطلة سيدكوا بريستي مركز النفاق ما كبقى يا نفاق نن رجي كتاب الوحي كمدها مركز النبي جينا عليه الصلاة والسلام وحي وكل صدقه دور كين النبي جهور فريسين سوى وحي قريس وكمدها نك وحي جيدا أن لقوا آمني أيا كبقى يا أكل منافق كبقى يا أكل أبو بكر منافق بان هي قدروا نفاق ما كبقى يا markaasuu abubakar afka qabsaday war maxaa leedahay markaasuu warruntay buu yidhi markii masaajidka aan joogno ee nabiga calayhi salaatu wasalaam aan la joogno ee nabigu jannada iyo naarta uu nagala mudaakaronayo ee nabigu aakhirada uu nooga sheekaynayo waxaad moodaa jannada iyo naarta inaan indhaha ku arkayno markaan baylahdii adduunyada iyo awlaadiyo dumarka xaggooda aanu kacnana wixii haddeer masjidka ku xasuusanayn waan illownaa buu ka yidhi حالات كلام قلابو لي مركان دبده او بخو لاصحاب رسولكو مرنا مسجد جي جوجين مرنا تجارات بي لهايين مر مهاجرين بي هايين مر انصار بي هايين مر مجاهدين بي هايين مر معلمين بي هايين مر متعلمين بي هايين مر معتكفين بي هايين مر مبعوثين بي هايين ونبينا عليه الصلاه والسلام دعوته النبي قدر هي جهاد قدر هي أمد لنا أول بلغت تربية ولغت السبيحين ولكن مع ذلك يكون مقالة مدينة كنول
oo nabi maxamedna suxbadiisii haysta oo nabi maxamed wacdigiisii maalin walba maqlaaya haddana way dareemayeen inuu iimaanku nuqsaamayo markay adduunyada ku mashquulaan haddii ninka madiina joogay nifaaqu ka baqaayo ninka suuqa madiina joogay ee suuqa madiina ka ganacsanayay hadduu nifaaq ka baqaayo suuqyadeena maanta ka warrama waa cinkee suuqyadeenu waa suuqyo gabdhaha adoo ka weecda maahina kaa weecan maayaan waa suuqyo gish khiyaanad inta badan tijaaradeenu ay ku dhisan tahay waa suuq been iyo runtu beentu ay ku badan tahay waa suuq dulmiga maaragtaan iyo cadaaladu dulmigu ku badan yahay suuqa uu leeyahay iimaankayga ku naaqusmaya waa suuqii magaalada madiina inagana suuqeena ka warrama maanta abubakar sidiiq baa ku yidhi inna lanalqa ma talqa arrinkaa aad la kulanto annagana uuna haystaahay bal nebiga inoo gee markaasay nebigeenna u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam arrinkii bay nebiga u sheegeen markaa buu nebigu ku yidhi waa runtiin aniga markaad ila joogtaan iimaankiinna iyo yaqiintiinnu haddii mar walba halkaa ay ku joogi lahayd malaa'igta iyo ininka kashfiga daaha inii dhexeeya intoo la qaado ayaa jidadka aad maraysaamay malaa'igtu inagu salaami lahayd gogasha dusheedana malaa'igta inagu gacan qaadi lahayd buu rasuulku ku yidhi hadduu iimaankiinu xalaqadayda markaad fadhidaan markuu rasuulku inii bayaaminayo janno naar inagala hadlaayo ma sahlano nabi maxamed oo wacdigiisa kuu jeedinaya halka iimaankiinu markaa uu gaaraayo hadduu iimaankiinu mar walba halkaa ku joogi lahaa waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam malaa'igta iyo ininka xijaabka inii dhexeeya waaba la qaadi lahaa buu ku yidhi oo maxaa dhici lahay jidadka aad maraysaan bay nagu salaami lahaayeen gogasha dusheedana way nagu gacan qaadi lahaayeen laakiin saacatan wa saaca yaa xantala malaa'igta sifadoodu waa cibaado waa cubuudiyad amaa inuga bini aadam baa tihiin xaajaad baad leedihiin oo daruuriyaad baad leedihiin markaad ani ila joogtaana iimaankiina uu biirayaa weeyaan xaajaadkii bashariga markaad tegaysaana iimaankii uu naaqusmayaa bay ka dhigan tahay iimaanku marna uu biiraa marna uu naaqusmaa daacadda iimaanku waa ku biiraa qur-aan akhriska iimaanku wuu ku biiraa salaada jamca iimaanku waa ku biiraa xalaqada cilmiga iimaanku waa ku biiraa majaalista iimaaniga iimaanku waa ku biiraa dacwadda iyo ijtimaacaadka marka la yimaado iimaanku uu kobcayaa adduunyada markaad soo gasho miya mujtamac kaa badan baa adduunyada jooga mujtamac adiga kaa badan mujtamaca miskiidka cilaaqaadka lale waxaa ka badan mujtamaca miskiidka aan imanayna suuqa joogaa ka badan inta laynaga badan yahayna wayna saameynayaan ogaada laakiin nebigu wuxuu yihi saacatan wa saaca yaa xantala waxaan u baahannahay maanta daruuriyaadka inoo qaaliba mise cibaadada ya midkee qaaliba inila tahay daruurada qaaliba intuu miskiidku camiran yahay iyo intuu suuqa camiran yahay midkee badan hadda hargeysa iyo magaalooyinkeennaba dhammaan waxaad arkaysaa cishahay marka laga baxa maqaayadda la fadhiisan kowda habeenimo laga kici qaarna qaad baa waktigoogii dilay qaarna facebook iyo fadhi kudirir baa dilay waktigoodii iyo qabyaalada iyo siyaasad cumar binu cabdulcasiis baa odhan jiray raxmat ullaahi calayh ummad ilaahay u cadhaysan yahay calaamaadka lagu garta waxaa ka mid a waktigoogaa dayacan buu yidhi haddaad aragto ummad waktigoogu dayacan yahay oo maalaayacni ka sheekayn oo maalaayacni ku mashquulay oo maalaayacni fadhiya oo maalaayacni waktigooga ku bixin haddaad aragto waa calaamatu lmaqti buu yidhi ilaahay baa ummadda u cadhaysan bay ka dhigan tahay baa la yidhi marka daruurada aynoo qaalibe waa inay noqotaa cibaadadu qaalib waa inay noo noqotaa cibaadadu daruurada asxaabta rasuulka iyo salafku waktiga ugu yar ayay kasbiga xalaasha ku bixinayeen inta badanna waxay ku bixinayeen diintii iyo cibaadadii ku bixinayeen leanna markaasaa noloshoodii baa noqotay macaan imaam ghazaali raximahullah baa odhan jiray war jannada adduunyada ninkii doonayo ilaahay garo jannada aakhira ninka doonana waa ilaahay aragtidiisa buu yidhi jannada dhan ee adduunyadu waa ilaahay garashadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa labadaasaa isku xidhan
هل كان إلهي باللغو برنايا جنة إلهي باللغو أركيا دارتا إلهي باللغو برتا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هل كان إلهي باللغو برنايا آخرتنا وماشى مؤمنك إلهي وكو أركويا إلهي هاي نقدق كواس لذلك سيدا درتين waxaan u baahannahay maanta waddankeena iyo mujtamaceena marka la eego inta masaajidada soo galaysa waxa ka badan inta maqaaxiyaha fadhida ayaa ka badan inta salaada tukanaysa waxa ka badan inta bala salaada ayaa ka badan inta runta sheegaysa waxa ka badan inta beenta sheegaysa ayaa ka badan inta islaamnimadu la weyntahay waxa ka badan inta qabyaaladu qalbigooda ku weyntahay baa ka badan marka وين قادنا ددال جبار عن ددال أذق بالي نقرب عين قادنا ددال أذق ونمضى كشغين إصلاحيك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قرية أما مقالوا أما قوم دال مصلحين يدح وريقا يانا يدح السعودان إلهي وحولي هلاقي من نبا إلهي حتى هذا الشرك كجران هذين معاصده واوين ay ku dhex jiraan may maadaama dad muslixiin ay ku dhex joogaan muslixiinta sababtooda ilaahay ku badbaadin idan islaax waa inaan ka shaqeynaa islaax ummadana bini aadamkana qalbiga laga islaaxiya hadduu qofka bini aadamku qalbiga ka islaaxo jawaarixdana uu ka islaaxi oo amal wanaagsan baa jirkiisa ka soo fuli hadday bini aadamka qulubtoodu islaaxdo oo jawaarixdooduna islaaxdo nolosheena adduunyada dhan baa markaa islaaxi dadaalkaas waa dadaalka diinta weeyaan dadaalka diintana ma culimada iyo waxaan ku daynaa un iyo ducaadan ku daynaa mise waxaan idhahnaa may kulligeen diinta xil baa inaga saarane dadaalkayda waa inaan ka qayb qaadanaa insha allah dhahada maxaad niyooteen إناد عبادي ستد المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم سنن ابن ماجه رحمه الله يقول شيء حديث كاس مؤمن كدتك دحق لا يبو نبي يري دبكونا نوات كيسنا يا أياك خير بدل مؤمن كدتك أنا دحق لين دبكونا نوات كيسنا دين علمي قال لقوا في ديا دين دعوة قال لقوا في ديا diinta akhlaaqda lagu fidiyaa diinta jihaadka lagu fidiyaa diinta hijrada lagu fidiyaa diinta suurada ayaa lagu fidiyaa dadka in la dhaxgalaan u baahannahay maanta mujtamac waliba wadankeena mujtamaciisu waa boqolkiiba boqol muslim laakiin markii dacwadii aan ka gaabinay maxaa dhacay istahwada calayhim ash-shaytaanu fa ansaahum dhikra allah shaydaan baa ka qaalib noqday oo qalbigii buu ka fadhiistay oo maskaxdii buu kaga fadhiistay oo aqligii buu kaga fadhiistay oo waqtigiisii buu kaga fadhiistay dadna markaasuu daacadda ilaahay buu seejiyey dadna markaasuu xisbigii wuxuu ku daray xisbigii shaydaan buu ku daray xisbigii ibliis haddaan laakiin u tagno gacanta soo qabanno ilaahay caza wajalla dadaalkeena ma dayacayo imaam maalik binu dinaar raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu arkay nin sakhraansan waa muslim sakhraansan laakiin khibradii baa ka siinaysa allah 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 sheekhii markaa uu dhaafi waayey wuxuu yidhi war afkan ismu llahi alacdam ismu daat magac ilaahay weyna uu ka soo baxayo sidan bal ha ku dhaafine bal cimaamadaadana iska qaado dhareerkan iyo khamriga ka bii buu isyidhi markaasuu leeyahay sheekh sakhraan baan ahay iga dheerow sakhraan baan ahay iska kayda waa sakraansanahay idda maya u kaadi budha uu ka masaxay uu iskaga tegey habeenkii sheekhi masjidka markuu galay buu fadhiisan waayey ilaahay buu baryey ya allah ya allah ya allah qalbigiisa adahaya soo helee habeenkii markuu seexdaa lagu yidhi sidaad magaca iyaga aad u weynaysay eed afkiisii khamriga iyo dhareerka aad uga biisay ayaan isagana qalbigiisii khamri dambe ka biinay baa ilaahay yidhi waana soo hadaynay deedna markii dambena masjidkuba ku arkay ninkii طaalib alcilmi buu noqday caalim min culamaa alislaam buu ka mid noqday ninkii cumar bnu khadaab radia allahu canhu ka eeg tafsiirka waxaad ka eegtaa suuratu ghaafir
ابن كثير ككيك عمر بن الخطاب وحا زمن كيسي جريي نين ماركتاني بريد واردتك رسالة لها الله سودي بجري دولة الإسلام كمركي قاعد عراقي الشام مدحد آياه ورقدها يوسودي بجرين مركاس عمر بأوكين جرين عمر بانكيبو يا عمر مركا رج كوفكي مدبو ورسو كويري ورنك هبل ها بريقا ورقدها يكين جري إن دور ما نركين ما مركاس يا أمير المؤمنين نكي ها أوسم بري رحضو وعون نقضى شارب الخمر صلاة دي بوكتغي عاسبوا النقضي لأن ما بتو كذا خلاص مركز عمر ماذا حصد أو الروحي منكي أنا جاي مجري إيه وحاسو تعب الدين تقليي أي الذين أو النقضي أو خمرجي يا بلودي يا قال لي ماذا بكون نقضي بعد الذين ما دعي كريس بودي ما أقبل إنه ورقد الرسالة دا بنقوري إيجا جارسية بودي رسالة إيجا جارسية هذا عمر بنا كاوي ديي أنا كسو سلام أيي ورقد أنا وكسو دري ولما مركز أتجيسان بوكيري هذا صدحتين يا أفرتهين با أنت أنا أتجيني أتسجى أنا زيارا إلهي بري بول إلهي بري وقعما إلهي أتجا إن إلهي قلبي يسوع هذا يسوع عليه آية الله قرأ ما تقانان غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير آية داس الله قرأ لأن مرقاسي أوجينا كوير هذين وعمر أمير المؤمنين بأن كاوي ديي وعيد مع عمر وأدوية كلا بركة حكومة أي أنا جاي تبوي حصوصتي مرقاسي اللي يقول ها ولي بورقدنا وكو صدري أنا كو سلام أيي مرقاسي ورقدي أخريي مرقاسي كو عليي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ورقدي بوقاتو هل كابو قشدي هل كيبو كسرك عصلات رقيبو مسكيتك وراعي فتاب توبة نصوحا بالليلي نكي توبة نصوحا يوسو توبة كيني مركاسا عمر ما يلوبن بريد رقي الدنبي ويمي ديبو كيري ما فعل الرجل ورنكي أنا ورقد أوصودري ما قادي وان قارسيني وتوبة كيني توبة دي سوي وناكسناتي ومن عمار المساجد ما تنكي مركاسو صدا يلا بود صدا هذا أرتان مسلم سمبري رحدي وشيطانكم إنك قاتي هكهرين الزيارة بويري قلبي سنة إلهي باهي إنت أنا دوت تجينا إلهي بري ودعي بويري ورمضة إن بدن بامانته إنك مقان أفرت المساجد سوق ليس يعني كقنع شن يسدية مانته ومضوا قعنتي إنكم مجرتوا قارقات باقاتي قارقبيالات باقاتي قار سياسة باقاتي قار فيسبوك باقاتي قار ودن كما ما جوغان قلبك كدوفين با كل ما جوغان با دلكوغا ما بآمن سنبي الدين تودا بالكهر بان كاي مدى يوغاندا دور مساجد هلكا كو تالو سوماليدو اي لهدحي ايا ددكو سدان u soo camireen dhalinyartii midna baan u wareys xageed ka mid burco xageed ka timid hargeysa xageed ka timid boorama xageed ka timid jabuuti xageed u socotaa line baa ka furmay meesha line online halkee inaan dadaal jabbaaran qaadno dacwadda u kacno wadaniyooda insha allah بس dhageystayaal wanaagsan baan noqonaa kaliya bas warayaa oo diyaar in noqdo shaqaale diineed insha allah dhaxda hay mashaayikh anagu waa tashkiilnaadeeda allahu akbar hada ugu horeyn bariga tajiro noogu timidana oo ka dambaysa taqabbal allah insha allah habeenka jimcaha markaska ka soo qayb gala halkan waa markas runtii masaajidkan وبمثابة المركز هذا علم نقطه هذا دعوة نقطه مركز إن شاء الله لبداس والله بده الدين تانو أي كف الدين يكون في ريس القيامة دعوة دي علم وصعدة مركز الله بده بانود دالنا سعودي أرمني إن شاء الله دم بيجنا الله هداف دم بيجا والدين تان الله هداف دين تان الله إنه معاني مرة كان الله شافي موتات كان الله منحرست أمن إيمانك الله إنه زيادي أمن إيمانك الله إنه زيادي labadii bilood ee dadkeenu ay xiraami jireen baa gaadhay ilaahay nabadgelyada aan haysano qiimaheega Allah ina tuso buuqa iyo qayladana si dhib yar Allah inagu dhaafiyo nicmada nabadgelyadana kuwii adkaystay ilaahay ugu mahadnaqa Allah inaga yeelo
kuwa qabyaalada islaamnimadu kala weyntahay Allah inaga yeelo dadkana han wacyi gelino han idhaano war isdajiya ka madax noqonaya xagga carsigu ka qoran yahay xagga carsigu ka qoran yahay ilaahay ha ka baqno oo dadka hal la baraarujiyo oo nabadgelyada Allah inoo adkeeyo waa nabad waxa ku soo kulanay ogaad haddii nabad jirin miskiin lama yimaadeen sidaana looma camireen suuqa nabadda qof walba waa u dan siyaasiga waa u dan caalimka waa u dan taajirka waa u dan ubadka waa u dan tacliinta waa u dan ka buka waa u dan ka dhalinyarada waa u dan wadanka nabad buu haysaa nabadaasaan maalayna Allah inoo adkeeyo Allah inoo adkeeyo muslimiinta meel joogaan kurbada saran Allah ka qaado kuwa walaalahayna Gaza lagu gumaadayna Allah u gargaaro Allah u gargaaro Allah u gurmado yahuudiya wixii la socda way kibreen way qooqeene sidii fircoon iyo jeeshkiisa loo qabtay ilaahay ha u qabto waana dhowdahay in la qabtay ilaahay ha qabto muslimiinta halka ku dhibaataysan dhibaatada Allah ka faydo inagana khaatimada Allah inoo wanaajiyo eheladana wixii naga bukana caafimaad sariic Allah siiyo cidii kurbaysan halka fadhiday cidii naga maqaba kurbada Allah ka faydo sallallahu ala nabiyina muhammad